marka aad wajahaysid waraysi rasmi ah gaar ahaan waraysi qaxootinimo waa lama huraan inaad la timaado feejignaan diyaar garow iyo faham buuxa su'aalaha lagu weydiinayo inta lagu guda jiro interviewga ma aha kuwa kaliya lagu ogaanayo sheekadaada balse sidoo kale waxay cabirayaan kalsoonidaada daacadnimadaada iyo sida aad isugu diyaarisay fursadan warbixintan waxay diiradda saaraysaa muhiimadda ay leedahay in si miyir leh oo kooban looga jawaabo su'aalaha lagu weydiinayo iyadoo laga fogaanayo faahfaahin aan loo baahnayn oo horseedi karta khaladaad ama isburin dhanka hadalka ah waa Saacid Xaaji Aadan soo dhawaada mar kale marka aad leedahay interview waa lagama maarmaan inaad si taxaddar leh uga jawaabto su'aalaha lagu weydiinayo qaar ka mid ah su'aaluhu waxay u baahan yihiin jawaabo gaagaaban oo toos ah sida ha ama maya iyadoo aan loo baahnayn faahfaahin dheer ama falanqayn xad dhaaf ah waxa muhiim ah inaad ogaato in faahfaahin aan lagu dirsan oo aad gashaa ay ku horseedi karto isburin shaki ama khaladaad si aan ku talagal ahayn kaaga dhaca marka aad wax badan sharaxdo iyadoo aan lagu weydiin waxa laga yaabaa inaad si lama filaan ah u sheegto xog aan sax ahayn ama khilaafsan mid aad horay u sheegtay saraakiisha interviewga qaadaysa waxay mararka qaar ka shakiyaan qofka isagoo aan la weydiin haddana isku daya inuu sharaxaad badan bixiyo waxayna u muuqan kartaa sida qof qarinaya runta ama kalsoonidu ku yar tahay interviewga ama waraysiga inta badan waxaa loogu talagalay waqti xadidan sidaa darteed haddii aad isku daydo inaad wax walba faahfaahiso waxay keeni kartaa in la waayo fursad lagugu weydiiyo su'aalo muhiim ah oo taageero u noqon lahaa dacwadaada talo ahaan waxaa kuu habboon ka hor inta aadan jawaabin haddii su'aashu tahay mid jawaabteedu kaaga filan tahay haa ama maya si kooban uga jawaab taas beddelkeeda haddii su'aashu u baahan tahay faahfaahin markaas waa kuu furan tahay inaad sharaxaad ku filan bixiso laakiin haddii su'aashu tahay weligaa ma tagtay dalkaas weligaa ma lagu xiray weligaa urur siyaasadeed ma ka mid noqotay jawaabtu waa haa ama maya iska ilaali inaad tidhaahdo haa haddana laakiin kadib mariso wargelin muhiim ah xafiisyada Saacid Agency waxay kaa caawinayaan guud ahaan adeegyada kala ah diyaarinta kaysaska iyadoo la raacayo shuruudaha rasmiga ah sixidda kaysaska khaldamay ama diidmo hore la kulmay turjumaadda dokumentiyada iyo kaysaska si sax ah luqadaada hooyo qabashada ballamaha faraha biometric appointment ka jawaabidda interviewga soo saaridda iyo buuxinta codsiyada viisaha ka jawaabidda iimaylada kala duwan iyo talo bixinta arrimaha la xiriira interviewga iyo socdaalka haddaba si aad u hesho adeeg hufan oo degdeg ah fadlan horay u gaar xafiisyadeenna ama kala xiriir lambarada shaashada kaaga muuqda sidoo kale haddii lagu weydiiyo tusaale ahaan su'aal sida goorma ayaad ka soo tagtay dalkaaga fadlan ha bixin jawaab dheer oo mugdi gelin karta warbixintaada intii aad oran lahayd markii dagaalku dhacay oo xaaladdu adkaatay ayaan ka soo tegay dalkayga iyo wixii la mid ah waxa ku habboon inaad si toos ah u tiraahdo waxaan dalkayga ka soo tegay xilligaas adigoo xusaya taariikhda mar walba oo su'aal lagu weydiinayo waa muhiim inaad si buuxda u dhegaysato hana ku degdegin inaad jawaab ka bixiso adigoo aan si dhab ah u fahmin waxa lagu weydiiyey fahamka saxda ah ee su'aasha ayaana kaa caawinaya inaad si sax ah oo lagu qanci karo u jawaabto waa muhiim inaad kalsooni muujisaa laakiin ma aha in lagu arko qof isdifaacaya waxaana sarkaalka interviewga kaa qaadaya arrinkan uu u fahmi karaa in aad wax qarinayso interviewgu waa fursad dahabi ah oo lagu dhegaysanayo codkaaga sidaa darteed si aad u kasbato kalsoonida waraystaha waa inaad uga jawaabtaa su'aalaha si kooban toos ah oo daacadnimo ku jirto jawaabta kooban waa tilmaanta qof fahamsan xaaladiisa diyaarna u ah waraysiga waxaan shaki ku jirin in diyaar garowgu yahay furaha guusha ku celcelinta jawaabaha inta aadan tagin interviewga ama in aad cid kuga caawisa raadsato sida lawyer case worker ama xafiis khibrad u leh arrinkan waa kuu muhiim qofka aan si wanaagsan isu diyaarin waa sida dooni aan lahayn jiheeye inaad iska ilaaliso faahfaahin dheeraad ah oo aan lagu dirsan waa xeelad muhiim u ah waraysigaaga waxayna kaa caawinaysaa inaad u muuqato qof daacad ah feejigan fahamsanna waxa uu sheegayo islamarkaana iska ilaalinaya isburin iyo khaladaad aan loo baahnayn fadlan haddii aad nala soo gaartay dhammaadka muuqaalkan waxaa naga xasuusinaya inaad muuqaalka laygarayso saaxiibadaada la wadaagto si uu meelo fog u gaaro dadkuna uga faa'iidaystaan wixii talo ama tusaale ah waxaad noogu reebi kartaa qaybta commentiska hana hilmaamin inaad subscribe tiraahdo si xogaha aan channelkan ku soo gudbinno aysan marna kuu dhaafin intaan talooyinkan kuwa lamida ku kulmi doonno nabadgelyo